Waxay ku seexatay sariir weyn, balse markii ay soo toostay waxay argagax ku aragtay muuqaalka dibadda. Degdeg ayay u diyaarisay boorsooyinkeeda si ay iyada iyo wiilkeeda uga baxaan meesha khatarta ah. Laakiin markay albaabka furtay, waxay aragtay deris badan oo ku urursan jaranjarooyinka, dhammaantoodna waxay ku ordayeen dhanka sare. Iyaduna waxay ku qasbanaatay inay wiilkeeda dhabarka ku qaado oo kor u fuusho. Markay halkaas gaadhay, waxay aragtay deriskii oo horay biyaha ugu dhacay, iyagoo qaylinaya gargaar. Anna ma aysan haysan wakhti ay ku fakarto, waxayna si xawli ah ugu carartay dhanka sare. Anna waxay maqashay cod ay taqaan, waxayna salaantay qofkii. Laakiin si lama filaan ah, wiilkeeda ayaa ka luntay. Argagax darteed waxay gashay guri si ay u raadiso, balse ma aysan helin wiilkeeda. Xitaa waxay halis ugu dhowaatay inay nafteeda ku waaydo, maadaama biyo xoog leh ay si lama filaan ah u galeen qolka oo dhan. Nasiib wanaag, Anna waxay taqaanay dabaasha, waxayna ku sii neefsatay biyaha hoostooda iyadoo raadinaysa wiilkeeda. Ugu dambayn waxay ku heshay qol kale, balse albaabka ayaa xirnaa oo aan la furin karin. Wiilkii oo miyir beelay ayaa dib u soo toosay kadib markii la daryeelay. Haweenaydaasi waxay ahayd shaqaale ka tirsan machad cilmi-baaris, Annana waxay ahayd dhakhtar muhiim ah oo halkaas ka shaqaysa. Sidaas darteed, haweenaydii waxay ku qasbanaatay inay ilaaliso Anna ilaa shirkaddu ay helikobtar u soo dirto. Markay kor u socdeen, wiilku wuxuu sheegay inuu musqusha u baahan yahay. Anna waxay ku qasbanaatay inay raadsato guri madhan, balse halkaas khatar ayaa ka jirtay, maadaama tuubooyinka cadaadiska buuxo ay qarxinayeen. Markay urtay gaas baxaya, waxay si degdeg ah wiilkeeda uga qaaday meesha. Isla markiiba guri deris ah ayaa qarxay, waxayna ku qasbanaadeen inay dib u noqdaan. Saddexdooduba waxay galeen xaalad adag oo aan hore loo socon karin ama dib loo noqon karin. Haweenaydii waxay go'aansatay inay kor u fuusho, balse wiilka yaraa ma fahmin sida loo socdo, wuxuuna si adag ugu dhegganaa hooyadiis. Anna waxay ku dhacday biyaha, nasiib wanaagna waxay qabatay loox caag ah oo ay ku sabayso. Wiilkeeda wuxuu ku sugnaa dabaqa tobnaad, sidaas darteed Anna waxay ku qasbanaatay inay jaranjarooyinka ku fuusho. Markaas ayay maqashay cod gabadh oo ka imanaya liftiga oo gargaar codsanaysa. Anna ma aysan awoodin inay indhaha ka qarsato, waxayna raadisay qalab si ay u furto liftiga, balse markii ay soo laabatay codkii gabadha ma uu jirin. Anna waxay garatay in gabadhu dhimatay, waxayna dib ugu noqotay wiilkeeda. Wiilku wuxuu bilaabay inuu xanuunsado, sidaas darteed Anna waxay ku qasabtay inay siiso sonkor biyo ah si uu u bogsado. Laakiin mar kale derbi biyo ah ayaa ku soo dhacay, waxayna ku qasbanaadeen inay kor u cararaan ilaa ay ka gaadhaan saqafka sare. Markay saqafka gaadheen, koox samata bixin ah ayaa halkaas ku sugaysay, balse waxay go'aansadeen inay wiilka qasab ku qaataan. Waxaa la ogaaday in wiilka aanu ahayn ilmo caadi ah, balse uu yahay noole cusub oo machadka lagu sameeyey. Anna oo ahayd dhakhtar ayaa horay u ilaalinaysay, balse hadda ma aysan awoodin. Dhacdadan waxay ahayd roobkii ugu weynaa taariikhda, kaas oo dhulka oo dhan hoos dhigay badda. Si loo sii wado ilbaxnimada, roketyo ayaa loo diray cirka, waxaana lagu abuuray noole cusub oo hooyo iyo wiil ah. Anna mar kale ayaa indhaha kala qaaday, xusuusteediina waa la tirtiray, waxayna ku soo toostay sariirteeda maalintii ka horraysay musiibada. Machadku wuxuu u sheegay in roobku mar hore 3 dabaq ku qariyey, sidaas darteed waa inay degdeg uga baxdo guriga. Markay baxday, biyuhu waxay gaareen jilbaha, deriskuna waxay ku ordayeen dhanka sare. Mar kale roob xoog leh ayaa ku soo dhacay. Anna waxay ku dabaashay biyaha, waxayna wiilkeeda ka soo saartay.